Xamaas ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku xaqiijinayaan heshiiska laga gaaray dagaalka Gaza, waxaana lagu yiri annagoo ay nala jiraan dhammaan kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta waxaan ku dhawaaqaynaa in kadib wadahadallo dhab ah oo mas'uuliyad leh oo ka dhacay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar iyadoo la raacayo soo jeedinta madaxweyne Donald Trump in la gaaray heshiis ku saabsan joojinta dagaalka ka socda Gaza. Heshiisku wuxuu dhigayaa in ciidamada gumaysiga ay gebi ahaanba ka baxaan marinka Gaza, in la oggolaado gelitaanka gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza, in la fuliyo isweydaarsiga maxaabiista si loo soo afjaro dagaalka dabar-goynta ah ee lagu hayo shacabka Falastiiniyiinta, loona xaqiijiyo ciidamada Israa'iil inay si buuxda uga baxaan dhulka Gaza. Marka hore dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka noo share gareeyaan, sidaas oo kale subscribe inoo dhahaan mahadsanidin dhammaantiin. Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda ee Israel Bezalel Smotrich oo xagjir midig fog ah ayaa noqday qofkii ugu horreeyay oo sheegay in uu ka soo horjeedo heshiiska Gaza, wuxuuna caddeeyay inuusan u codeyn doonin marka la horkeeno golaha wasiirada ee Israel. Wuxuuna intaa ku daray waa in Xamaas la burburiyaa marka maxaabiistu la soo celiyo. Waxaa jira cabsi weyn oo ku saabsan cawaaqib xumo ka dhalan karta furitaanka weerarka xabsiyada iyo sii deynta jiilka cusub ee hogaamiyayaasha argagixisada ee Xamaas, ayuu leeyahay Bezalel Smotrich.